deegaanka ceelcadde oo hoos yimaada degmada Garadagga galbeedka gobolka Sanaag kagana beegan dhanka waqooyi bulshooyinka kala duwan ee ku nool deegaanka ceelcadde ayaa cabasho xoogan ka muujiyay isgaarsiinta labada shirkadood ee kala ah Samtel iyo Telesom iyagoo baaq u diray shirkadahaas waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan waxaanu ka cabanaynaa shirkadda la yiraahdo Telesom shirkadda Telesom la yiraahdo dalkan aanu joognaa ceelcadde xukuma waa dal balaaran ateenka in badan ba waanu ka cabanaynaa ateen xumada waxaanu ka cabanaynaa meeshan waxay xukuntaa dal badan bay xukuntaa waxay xukuntaa meesha la yiraahdo Malawad Guulaan Garabcad Cilaan Haqay Furusays Diga Weyne Qodax Weyne Argeega dal badan bay xukuntaa dalkaas dhammaan waa lama hel karo weeyaan dalka waxaanu uga cabanay gudoomiyihii hore ee Salabaan Jaamac ee labada degmo xukumi jiray shirkadda ugu qaabilsanaa gudoomiyaha sidoo laha taawur baan idinka taagayaa xarun baan magaalada idinka dhisaya sidii balaqaadadaas noogu maqnaayeen ayuu gudoomiyihii wareejiyay waxaanu leenahay balaqaadadii hore noo maqnaa hana loo fuliyaan leenahay kaga hadlaynaa anagoo heer ceelcadde ateen xumada naga haysata Telesom hadday tahay internet iyo hadday tahay ku hadal iyo hadday tahay saad midna kama hayno imika muddo 3 sanadood la gaadho intaana waxaanu ugu dul qaadanaynay laba hel kareedaasaan u dul qaadanaynay maanta laga bilaabo u dul qaadan mayno 15,000 oo kaad oo ay Telesom leedahay ama hawada ay ka baxayaan oo hawadanu ka saaraynaa ama waxay ka bedelaysaa ateenka suugaale laba hel karo dambe yeeli mayno internet bay samaysay internetkeedu ma shaqeeyo ku hadal bay samaysay ku hadalkeedu shaqeyn maayo lacagta free baanu ku shubanaa freegu wuxuu ku dhamaadaa laba hel karo saan ugu jiro ku hadalka iyaga kale wuxuu ku dhamaadaa sidaan hebel leenahay halow loolaayuu ku dhamaadaa lacagtayadu u dul qaadan mayno Telesom ateenka waa inay wax ka qabato suugaala la yiraahdo isku haysana qof dumar lacagtii ma soo diriniyo waanu ku diraa xarun baanu isla taaganahay ee kuma jirayno waxane lacagtayada rafo maanta waxay nagu dhaaftay sidii loo lahaa Samtel yeerso wanagu Samtel badadku kala barbar baan lahayn ama Samtel baanu wada yeelanaynaa ama Telesom baan loo hagaajinayaa runa dila doonayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel joogtaba waxaan joognaa magaalada ceelcadde boqorada ceelcadde joognaa waxaan ka cabanaynaa bilaateen dhowr jeer hore waan ka cabanay haddaan nahay dadweynaha ku dhaqan magaalada ceelcadde habeen walba waxaan ku wadi qof aan lacagtii u dirnay baan kula nahay waad iga haysataa iyo kama hayo isku haysanaa wax galaya ma jiraan waa tag qof garaacmaya ma jiro qof lacag ka baxaysa ma jirto waxaan ku wadi qof ma la xudii ka ma jirto marka waxaan ku cabanaynaa Telesom hadal beersan hadal kaarkeeda qumayna Samtel hay'adda Samtel waxaan leeyahay shirkadda Samtel waxaan ka codsanaynaa inay wax taagto ateen magaalada ceelcadde ama maxaan ahay qadka loo sii deyso qadka caadi noga dhigto Telesom waa caawin kaarkeeda siinayna 19 jeer waxaan cabanay 19 jeer wax ka qabta wax la xaqamay ma jirto halkan waxa taala magaalada ceelcadde waa magaalo dal badan dadna badan waana meel istaraatiiji oo adduunyadu timaado oo lagu kala iibsado 10,000 oo neef baa hadda lagu kala iibsaday 10,000 ee neef saacadan hadda yara 3 maalmood u dambeeyo 10,000 baa lagu kala iibsaday 10,000 lacagtoodii meel allaale Telesom oo la isku haysta meel allaale iyo meel dadku ku kala baxaa bay leeyihiin oo indhaha isku la jiraan Telesom waxa uu leenahay si degdeg ah weyn ateenka wax uga qabato hadday taalaysona waa inay xarun keento magaalada ay taalayso waxa uu leenahay ateen xumadaasi inta rayd macnaan hayno oo ku hadalka firiga markaan ku subaano sidii ugu jiraabo ku dhaca oo sida la sheegay ee raggii hore sheegay hamar ay intaanu shaaha ka cablay baanu maalin walba isaysanaa ima dirin iyo waan ku diray xarun uun baan kala saarta waxa uu leenahay oo Telesom u sheegaynaa si degdeg ah shirkadaasi waa inay ateenka wax uga qabato meeradaha markaan haysano hal saac qofkiis yiraahdo boontife fudir ama ku shilin u dir hal saac buu la wareegalaysanaya telefoonka dibbaata baxaad baa naga haysata dibta naga haysata waxa weeyaan in dibtaana la ka xalalo in badan waanu ka hadalnay waxba alla waxba nooga qaban weey waxaanu leenahay doolarkii googa ahaa markii hore naga joojiyay doolarkiina sidii nooga tagay $100 wax ka yar naga ma baxo taawarka ceelif weyn waanu ka tirsanahay gobolka Sanaag baanu ka tirsanahay doolarku uu ka baxaa waxa anaga calqadadana saaray ha sheegto Telesom naga haysato oo ay maxaan dhahay in badanba ateen xumo lacagtii aan la dirayn hadalkii mid walba dhib naga haysato
in badan baanu sabreenay ama maxaan dhahay waxa nooga qabato ateenka iska hagaajiso ama maxaan dhahay dee anaga furfurato taawaradana meesha ka taagtay ku jirto koob shahna looma diri karo qofkii 3 saacadood buu ku la wareegaya waxa noorayna nooma dirin baanu dhahaynaa qofkii waanu isqabsanaynaa dhahan isla galaynaa qofkii 3 saacadood buu wareega cadaysanaya oo wixii wadaga haysataan noorayna kaama haysano marka anagu dhibaatada dacwadda noocaas baan ka qabnaa shirkadda Telesom